xafladda wareejinta gudoomiyaasha maxkamadaha gobolka Banaadir iyo Racfaanka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, xeraalyaha guud ee qaranka, taliyayaasha ciidamada biliiska iyo asluubta iyo mas'uuliyiin kale oo bahda garsoorka u badan. waxaana si rasmi ah xilalka ula wareegay mas'uuliyiinta cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Garyaqaan Abshir Cumar Cabdullaahi oo loo magacaabay dhawaan gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka iyo garyaqaan Muuse Macalin Maxamed oo ina markaasi loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ugu horeyntiiba loo dhaariyay mas'uuliyadda culus ee loo idmaday, waxaana kadib ay xilka kala wareegeen mas'uuliyiintii hore iyadoo uu goobjoog ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalku. Sareeyo guud Bashir Cabdi Maxamed, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, iyo sareeyo guud Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo labaduba ka mid ah hay'adaha sida dhow ula shaqeeya garsoorka ayaa u ballan qaaday mas'uuliyiinta cusub wada shaqayn wanaagsan. gudoomiyaasha cusub ee xilalka maanta la wareegayna waxa ay ballan qaadeen in ay isbedel ballaaran ku samayn doonaan nidaamka garsoorka iyo xafiisyada loo magacaabay, isla markaana aysan aqbali doonin cadaalad xumo iyo musuqmaasuq. waxaan ballan qaadayaa aniga iyo inta ila shaqeyso garsoorayaashayda iyo kaaliyaasha intaan madaxda u ahay inaan ummadayna ugu shaqeynayno si hufan oo karti badan oo dadaal badan oo aan fasax loo leeyahay ilaahayda. waxaan ilaahay hortiisa ka balqaadaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare hortiisa ka balqaadaynaa madaxweynihiina soo magacaabay hortiisa ka balqaadaynaa in annaga aan ilaalin doono xuquuqda intaan meeshaan joogno muwaadiniinta loona kala eexan doonin kuna koontarooli doona garsoorayaasha galalkood haaya. xeraalyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa kula dardaarmay gudoomiyaasha cusub in hawl adag ay hor taallo loona baahan yahay inay markaasi gutaan waajibaadka adag ee hor yaala. gudoomiyaashii hore ee baneeyay xafiisadana waxa uu ku amaanay doorkii wanaagsanaa ay qaateen muddadii ay joogeen. qolyaha cusub oo gudoomiyaalka cusub ee mas'uuliyadda loo dhiibayna waxaa fuulay culays ka ballaaran tii hore oo tageen baadana garsoorka mid ahayeen culays u saarnaa, laakiin hadda mas'uuliyad badan oo culays badan baa fuushay. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu u fududeeyo mas-uuliyaddooda, annagana waxaan ku ballan qaadaynaa inaan kula shaqayn doono si islaam iyo ikhlaas iyo dacadnimo ay ku jirto. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa soo xiray xafladda, waxaana uu kula dardaarmay gudoomiyaasha cusub ee maxkamadda gobolka iyo tan Racfaanka in waajibka adag ee hor yaala ay si alla ka cabsi leh u gutaan, waxaana uu soo jeediyey in laga filayo isbedel weyn iyo horumarinta hay'adaha cadaaladda ee loo magacaabay. waxaa jira waxyaabo badan oo dhinac walba ka qaldan marka garsoorka laga hadlayo garsoorka ma wada qaldan, laakiin waxaa iyaduna hubaala inay jiraan dad garsoorayaal ah oo garsoorka ka dhigta shaqo, oo garsoorka ka dhigta inay dadka ku dulmiyaan, oo garsoorka ka dhigta meel ay dhaqaale ay ka helaan. waxaa jira dad xeeryaalayaal oo sidaas oo kale ah, waxaa jira dad boolisa oo iyaguna sidaas oo kale ah, waxaa jira dad qareena ah oo iyaguna shaqadooda nooca ay tahay oo qofku uu og yahay in aanu xaq lahayn oo dacwadiisu aanay meel gaadhin kari ku warwareejiyay inuu ka soo bilaabo dacwadii maxkamadda degmada ama gobolka ilaa maxkamadii sare haddana ku soo celiya is-hortaag iyo fulin aan micno lahayn oo aan suurtagal inuu og yahay isagoo dhaqaalo u yahay. waxaa jira dad shicib ah oo maxkamadaha dhexdooda iyagu dilaal ka raadiya oo aan garsooran ahayn, kaaliyana ahayn, gaadhsiiyana ahayn, qareena ahayn. kuwaasna waa jira dhibaatooyin badan noocaasaa jira. waxaa jira dad been abuuro dokumentiyada ay dowladdu leedahay oo iyaduna dambi weyn. waxaanu halkan ka cadaynaynaa dhammaan arrimahaasi aan ka hadlayno, haddii ay noqoto garsoore, haddii ay noqoto kaaliye, haddii ay noqoto gaadhsiiye, haddii ay noqoto xeeraaliye, qareen, sarkaal boolis, qof muwaadin oo isagu waxaa ka shaqeeya qof been abuuro dokument dowladeed inaan midna loogu dul qaadan doonin. Axmed Cali Kaahiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.